sida ilo xogogaale laga soo xigtay dowladda Turkiga ayaa tababaro siinaysa ciidamo ilaalo gaar ah u noqon doona madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyadoo madaxweynaha Turkiga uu taageersan yahay xilligan madaxweynaha cusub madaxweynaha Turkiga Mr. Erdogan oo isaga kamid ah dadka diidan in ay xafiisyada dowladda meel kasta oo kamid ah ay galaan ciidamada AMISOM ayaa waxa la sheegayaa in uu ballan qaaday madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Abdullaahi Farmaajo in ciidamadana tababarka la siinayo dhawaan ku wareejin doona waxaana la sheegay in ciidamadana tababaraya sidoo kale qalabka ku bixi doona ay bixinayso dowladda Turkiga iyadoona ciidamadana ay qayb ka ahaayeen ciidamo muddo ay tababaraysa dowladda Turkiga isla markaasina ballanqaadkan hore ee uu sii ballan qaaday madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud inta uusan xilka ka degin madaxweynaha cusub Maxamed Abdullaahi Farmaajo ayaa diiday inay waardiyeeyaan ciidamada AMISOM waxaana guriga uu ka degan yahay Muqdisho ilaalo gaar ah oo ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya iyo nabad sugidda kuwaasoo isla habeenkii la doortay ammaankiisa la wareegay Maxamed Abdullaahi Farmaajo ayaa ah shaqsi inta badan ammaankiisa AMISOM lagu aaminayn maadaama uu yahay shaqsi dadka Soomaaliyeed ay aad u taageersan yihiin waxaana muwaadiniinta Soomaaliyeed qaar kamid ay qabaan in madaxweynaha Soomaaliya uu iska ilaaliyo xafiisyada AMISOM ay waardiyeynayaan dowladda Turkiga ayaa kaalmo kala duwan ku caawisay dowladda Soomaaliya waxaana tan iyo sanadkii 2011 dowladda Turkiga ay ku bixisay Soomaaliya dhaqaale isugu jira arrimaha bulshada iyo waliba taakuleynta ciidamada dalka sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa waxaana ila xogogaal ay ku waramayaan ciidamadii dhawaan ay iman doonaan magaalada Muqdisho iyagoo la wareegaya ammaanka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya